السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. run ahaantii qof kastoo wax garad ah wuu dareemi karaa maanta wejigayga shalay iyo wejigayga maanta inaysan islahayn, xitaa afkayga sida uu noqdo ayuu ka fahmi karaa, iyo dhaawac meesha iga yaallo iyo muuqaalo aan rabo in aan idinla wadaago oo aan rabo inaan idinkaga sheekeeyo waxaan kala kulmay Belarus ilaa iyo Poland inta u dhexeyso. Maalin waxaa jirtay aniga aan soo galay live oo aan asxaabta la sheekeysanayay, kadibna aan ku dhahay waxaa macquul ah inaan dib isugu soo laabanin 10 maalin ka hor ayay ahayd. Kadib maalintaas ayaan waxaan go'aansaday in aan aado birta Poland. Birta Poland dad badan ayaan ku wada kulannay, gabdho iyo wiilal Soomaaliyeed ah iyo rag badan oo ajaanib ah oo aan meeshaan isku baranay. Run ahaantii aniga qorsheyga marka hore ma ahayn inaan meeshaan ka baxo oo dhinacaas aan aado, laakiin waxaa la yidhi talada iyada kuguma noole adiga ayaa ku nool. dad badan oo waxaan arkay baxaayo oo birtaasna ka baxaayo oo ka cararayo Jarmal ama Poland galayo. Kadib anigu waxaan ku fikiray maadaama aan qof naafa ahay, waxaan is dhahay haddii aad birtaas tagto waxaa macquul ah in UN-ka amaba hay-adda meesha ka shaqeyso hadday xaaladaada aragto laga yaabo iridda in lagaa furo kadibna lagu soo geliyo. Waa sida aan ku fikiray, laakiin sida ay noqon doontay anigaba kuma fikiraynin. Marka naf walbana meesha ay ku dhibaatoonayso waa la geynaa, waa qasab. waayahay kadib dhalinyaraan wacay, waxaan dhahay arrintaasaan rabaa inaan sameeyo wada tashi badan aan sameeyey. Waxa ay dhaheen caadi waaye, waa sameyn kartaa. Okay, aniga niyadan ka noolahay haddaan lugaha naafa ka ahay, bas waa soo baxay. dadka wadaayeen aan la hadlay, mar rabo magaciisa inaan sheego. waxaan dhahay niyo arrintaasaan rabaa inaan sameeyo. wuxuu dhahay gaariyaan kuu soo diraa, gaarigaas ayaa ku qaadi doono meel fiican oo ku geyn doonaa oo aadan ka lugeyneynin. waayahay gaarigii aan ku alla heshiiyey, waxaan dhiibay lacag $350 ah oo gaariga 500na waxaan siiyey ribriga aniga i waday oo nin carab ahaa. habeenkii intaan ka baxay waxaan qaatay wax yaroo aan cunto ahaan qaatay. waxaan is dhahay aniga meesha maba ku daahaysid, badaa tagtid horaa ka gelaysaa. wax yaroo cuntaan qaatay, hal xabo power bankigaan qaatay, aniga keligay gaariga ku dhacay. dhalinyaro kale oo Soomaali ah meesha usii socotayna gaari kale iga horeeya ayay saaran yihiin. waxaa jirto meel la yiraahdo kala wareeg. markii gaariga inta lagaaga qaado meel ayuu ku egyahay, gaari kale kuu imaanayo wuu ku qaadaa. aniga gaarigaasaan raacay, iyagana gaari kale ay raaceen, 2 gaari aan ku baxnay. bas markaan meesha tagnay waa laga boodaa gaariga, keenta lagu cararaa. aan waxaas dhahay marka wax badan lama soconayo, 2 tilaabo le waaye, birta horaa ka arkaysaa oo Poland waa fadhiisanaysaa. laakiin sida aan moodayay iyo sida ay noqotay aad bay u kala fog yihiin. wallaahi waxaan soo arkay oo weliba muuqaal aan idinkaga wado ayaan rabaa inaan idin tuso. bas markii meesha la galay, meesha ma dhowo noqdada annaga aan rabnay 335 ayay ahayd. annagana locationka naga qaldamay, ribrigana waday wuxuuna geeyey 346. farqiga u dhexeeya waa dareemi kartiin. ilaahay amarkiisa waxaa dhacday aniga tallaabo waa gadin waayo. habeen 8 saac habeennimo ama 2 habeennimo ayaan gaariga ka degnay. 2 tilaabo markaan qaaday, ileen meesha ood waaye, waa la tilaabsanaa, mugdi waa, toosh lama daari karo, ciidamada laga cabsanaa inay ku arkaan la diidaa, kuwa kalena nooma dhowo. okay, waa dhacay. markaan 2 mar dhacay oo ninkan carabta wuxuu yiri dhalinyarada Soomaaliya ninkan garab aan siino, aan qaadno. wax lii soo qaadar soo socdaba wabiyana soo xiray. inta dii loo baxan wabi waayo, inta dii loo baxan wabi waayo. qorshe waxaa la keenay in wabigaas la maro. alwaaxa la soo qabtay, biyo badanna ma ahan wabigee, alwaaxiyaa la dhigay, qof walba inuu meesha ku socdo oo dhex maro. baasaboorkaygan wato waa iga qoye, mobeelkii waa iga qoye. waxaan ku dhahay qof walba i qaado, meesha waa ila dhacaale, dhaawacaan saasoo igu soo gaaro. horta kow adiga waxaan rafaado oo aan rafaado, wabigaas waa gudbay. wabiga markaan gudbay oo dhinac kale aan u gudbay, meeshii haddana maba dhawow 10 kilomitir aan oo dhiman. waaga horta meeshuu noogu baryay. waaga markuu noo baryay haddana soo soconay silaga Belarus aa imaanay. silaga Belarus markaa imaanay qodanay oo silaga aan ka hoos baxnay. wiil Soomaali Maxamed saaxiibkayga qaaliga halkaan ka salaamaa, Poland ayuu joogaa maanta. maxamedkaas aa iga hormaray, sansaan intaan u sixdo gacmaha iga qabto, isoo jiiday oo isoo bixiyo, dusha isoo saartay oo meesha ila soo gudbay. wadadaas markii laga soo gudbo dhinac kale loo gudbaayo, haddii silagaas la taabto waxaa waaye ciidamada yaa soo baxayaan oo Belarus waa soo cararayaan, eeyay wataan, waa la kala cararaa marka.
aniga keentiyaa layga dhex tagay marka fiidiyoga keenta layga dhex tagay ee aan garguuranayo ila daawo marka. waad aragtay fiidiyowga soo maahan anigoo garguuranayo keentaas ayaan waxaan ku dhex jiray wallaahi oo bilaahi oo tallaahi muddo 6 saacadood ah. waxaa jiray fiidiyow aan rabay haddana in aan duubo oo anoo rabay inaan marxaladaas ku jiro aan idin tuso isla fiidiyowgaas horta mar kale ila fiiri. ilaahi subxaanahu wa tacaala yaa mahad iska leh. habeenii maalin aan soo soconay kaneeco habeenii maalin aan soo soconay hadda waxaan ku jirnaa xadka Poland birta laakiin wax yar iga dhiman 900 mitir iga dhiman dhalinyaradii waa kala carareen keligii inta fadhiyo inta badan dad badan ay soo ximbaaray ilaahay khayr ha siiyo kaneeca ay cunayso ma duubi karo muuqaalka waxa saas iigu dhigaayo waa kaneeco qof ila joogta ma lahan ilaahay oo kaliya ila joogay 6 saacadood aan keentas ku dhex jiray inta hadaa fiirsidna waa keen inta hadaa fiirsidna waa keen hoosteedana waa biyo qaybtaas wali waa dad badan oo fiidiyowgan daawan doono oo Jarmalka iyo Poland kala joogo ayaa jiraan oo aniga isaaciday hal qof ila jooga ma lahan ilaahay oo kaliya ila joogo intaan fiiri keen waxaan isdhahay maanta haddii meeshaan lagaaga tago wax qad ku shaqeynayna ma lahan haddii aad caawinaad wacan laheedna wallaahi aadan u niyajabe markaasaan bilaabay inaan garguurto inta ka bax waa fadhiisanaa ileen waa daaleysaa qof socon kara malaha alwaaxo tiirarka soo dhacay oo barafka u soo riday aan meesha ka buuxaan coos baa ina wax kala male laba wiil aan markay noqdada 46 ay istaageen ee waxay dhaheen warniyo ninkii naafada ahaa aan u noqono nimanka carabtay soo wadeen labadii wiilna way soo raaceen ma istaghfar 3 wiil soo raacday Abdicasiis Maxamed iyo Rashka soo raaceen rashka da meelo ku dambeeya ma aqaano laakiin Abdicasiis Jarmalkan ku ogaa intan ka salaama saaxiib abaalkaas wiligay ma iloobi doone waxay ii keeneen bahasha lagu seexdo oo la dhex galo ee ii keeneen bahasha lagu dhex rido 4 dhinac iga qabteen way socon weyse daqiiqa lagu socdaa Maxamuudka wuxuu yiri dushan saarana ee qof walba took ha u qaado dusha la soo saaray cabaar markaan socdaba waa ka dhacaa giyo fiiraha soo ii xanuuna ilaahay subxaanahu wa tacaala ya og jilibka haddana waa liiqaada waxaas dhan uma jeedo inaan qof dushii saaranahay gacmihiisaan aan u qabanaa labadii murqu dhabsaanta qofku u qabsanaysaa markuu ku ximbaaro labada lugoodna wuxuu sameynaa labadiisa dhinacood sas ugu soo qabanaa labada lugood ajrihii waa bararaa markay dhaheen laa ilaaha illa allah kadib waxaan tagnay noqdada 46 markaan tagnay aan wax yaro nafis helay 35 aan u soconaa 46 iyo 35 farqiga u dhaxay waa dareemi kartaa meeshan seexane 10 saac galabnimo markay tahay ama 4 galabnimo aan ka soo kacnay aliyiri waa la baxaa waayahay dadka dhan way daaleen wax raashin ma wadano sidee ninkan lagu qaadi karaa waa marka alwaaxa la soo jibiyay midka carabta alwaax soo jibiyay anwar intan ka salaama alwaaxu soo jibiyay markaasuu wuxuu yiri alwaaxana lagu fadhiisanaa laba qof ilaah laga qabto hal alwaax oo qof ku fadhiisanaya labada dhinac laga qabana saana u qabsanayo waa socon weys waa la fikir waxa la qorshe marka hore lagu soo qaaday waa in lagu qaadaa dusha lagu soo xirtay waa la soo cararay aniga xanuunku ma adkeysan kari ilan gacmihii dhan way xanuunaan lugihii way xanuunaan si xun saas ay qabanayaan anigana xoog aan u qabsanaa waa la dhaca waa istaageena waa la dhaca waa istaageena waa la dhaca waa istaageena gabalkii nagu dhacay waxaan imaanay wabi u dhaxeeyo Belarus iyo Poland meeshan dib ku shidanay wax yaro timir aan wadanay meesha ku isticmaalnay meeshii aan fadhiisanay waaga intuu nooga bariyaan sugeynaa maya i waa la baxa buuq yara meesha ka dhacay waa la isqabsaday waxa go'aan lagu qaatay in wabigaas laga tilaabo wallaahi
webigaas qaabkan ugu tilaabay ana xataa ma sheegi kari waxaa jirta buundo yar oo alwaax ka samaysan saas u saaran alwaax marka saas tashiilkaas uma ahan alwaax saas u kala fog yahay inta markuu qofka lugta dhigo haddana waa tilaabsanaa marka waxaa haddii la ximbaaro culayskaa badanaayo webiga iskula dhacaysiine maxaa la sameynaa aniga waxaa dhahay marka iqaada isaara markaa isaartiin gacantan inta aan dhiganaa lugtan soo qaada dhinacan kalaan dhigaa hal maraan dabada dhaqaajinaa dhinac kalaan saaraa saasaan webigii kaga soo baxay buundada yariista saasaan usoo maray waa soo socna waxaan soo soconnaba waxaa inoo muuqatay birta Bowland rajaana soo gash niida inoo dhismatay horta muuqaalka oo dhalinyarada ay ximbaarayaan hal mar aan idin tuso muuqaalkaas aad aragteen oo dhalinyarada aniga ay ximbaarayaan waxay i keeneen nuqdada 35 sawirkeedana waa idin tusi doonaa nuqdada markii aniga i keeneen ee meesha i dhigeen waxay dhaheen intaan ka badan naga bes waaye tabartu way naga dhamaatay waxaan cunnay iyo waxaan cabna ma haysano intaan kaaga tagaynaa waxaan sameynaynaa dhalinyaro kalaan soo wacanaynaa dhalinyaradaas kale ayaa ku saacidayso saaxiibkayga Nimcaan inta ayaan ka salaamayaa walaasheeda Nasra inta ayaan ka salaamayaa iyada hadda waxay ku soo laabatay Miniski Nimcaana sidoo kale Miniski ku soo laabtay dhalinyaradii ay qaaday meel yaro dab ugu shidnaa ayay igeeyeen dabkii meesha ku shitay meeshii ayaan fadhiistay waxa cuna ayay isiiyeen waxa la dhigay bahal yaro lagu seexdo bahal yaro lagu hubiyay waa jiray qawoobkii iyo biyihii aan ka soo dhaxbaxay iyo rafaadkii kaniiniya liisi wax waa iga tari waay waa istaagi waay waa dhaqaaqi waay waa socon waay muuqaalka oo dabka aan shidanaya idin tusaa ila daawada waad aragteen soo maahan sheekada ma dhowo haddaba aad ayay u dheer tahay haddaa intaan soo gaartay inta dhiban iyo rafaadkii ugu dhacay markaad aragtiin adinkaa dhihi doono arrintaa maaha barangiya waa dhab